Bismillahirrahmanirrahim. Waxaynu casharkan kaga hadlaynaa sida flash looga dhigo portable. Inta badan marka la format-gareeyo ama la rabo in Windows lagu shubo computer ama laptop, waxaa loo baahan yahay USB flash aad ku isticmaalaysid inay tahay portable. Waxaynu casharkan ku baranaynaa sida looga dhigo portable. Tusaale hadda waxaynu soo gelinaynaa flashta. waxaynu arkaynaa flashtan aynu soo gelinay hadda inay tahay mid aan portable ahayn, waayo haddii ay portable ahaan lahayd iconkan halkan saaran wuxuu isku bedeli lahaa calaamadda Windows ku jira flashtan aan format-gareynayo. sidaas daraadeed flashtan hadda ma aha portable. sidee haddaba portable looga dhigaa? la soo cashar. talaabada ugu horeysa aan qaadanayo waxaa weeye start menu gaan tegayaa, kadibna waxaan ku qorayaa cmd, kadib waxaan leeyahay enter. halka waxaan ku qorayaa diski part, enter baan leeyahay. waxaa ii soo boodaya fariintan waxaan oranayaa yes, kadibna markay ii soo baxdo waxaan qorayaa listing kadibna waxaan dooranayaa selecting diski 1, kadibna waxaan oranayaa clean, kadibna waxaan qorayaa create partition period, kadibna selecting partition 1, kadibna active, kadibna format fs equal ntfs quick. waan sugayaa ilaa intaas 0%gaas uu noqonayo boqolkiiba wax yar. okay, hadda waa isticmaalay, kadibna waxaan leeyahay exit. hadda waxaynu aragnaa in flashteeni ay marnaatay aysan waxba ku jirin. waxaan ku shubayaa Windows, sidaas daraadeed folderka Windowska ayaa furaya. kadibna waxaan koobiyeynayaa dhammaan folderkan furfuran ee Windowsku ka kooban yahay. markaan waxaan taabanayaa right click, kadibna waxaan leeyahay copy. waxaan tegayaa USB flash aan format-ka ku sameyn lahaa. waxaan kadib dooranayaa right click, kadibna waxaan leeyahay paste. waan sugayaa ilaa inta ay iga dhammaanayso ku shubistan aan ku shubayo USB flashta. marka aynu ku shubno waxaa la rabaa meeshan USB drive haysta ay ku qoran tahay drive-kan iconkeedu inuu isbedelo oo isku bedelo calaamadii Windows. markaas micnaheedu wuxuu noqonayaa flashtan format-keedu waa uu complete oo aan ku guuleysanay. waxaa xusid mudan flashta marka Windowska lagu shubayo in Windowska aan isagoo ay la socoto folderka aan lagu shubayn, balse isagoo furfuran lagu shubayo. hadda waa uu dhameeyey. waxaan sameynayaa flashta ayaan dib uga saarayaa, kadibna ku celinayaa PC. waxaynu aragnaa inaynu ku guuleysanay inaynu flashtan format-gareyno. hadda waxay diyaar u tahay flashtan in computerka lagu format-gareeyo, waana portable. waxaan ku cadaynay iconka Windowska aynu ku shubnay waa Windows 8.1. waxaan rajeynayaa inaad aad ula dhici doontaan oo aad ka faa'iideysan doontaan casharkan. la soco casharada kale.
YouTube ugu jira hana ilaawin inaad subscribe tiraahdo YouTube channelkeena si aad ula socotid casharada videoyada ee aan soo gelino YouTube keena.